Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Yasma channel. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ka naga ilaawin. Haddii aad horey noola joogtayna nagu caawi like-ta iyo share-ka si muuqaalkan u gaaro dadweyne fara badan si ay uga faa'iidaan macluumaadka aan soo gudbino iyo barnaamijyada taxanaha caafimaadka. Insha Allah maanta waxaynu ka hadli doonaa qaybtii labaad ee macluumaad ku saabsan mawduuceennii hore ee dhabar xanuunka iyo waxyaabaha keeni kara. Dhabar xanuunku waa xanuun ku dhici kara qof yar iyo qof weyn, cid walba uu ku dhici karaa, wuxuuna aad u badan yahay dadka waaweyn iyo hooyooyinka uurka leh. Dhabar xanuunka waxaa loo kala qaybiyaa laba nooc, mid marmar yimaada iyo mid si joogto ah oo loo yaqaano persistent pain. Dhabar xanuunka maxaa keena? Ugu yaraan waxaa keeni kara asbaabo kala duwan. Tusaale ahaan waxaa keeni kara jug kaasoo gaarta dhabarka qaybta dambe ama qaybta hoose, sida jug ama mid hadda kusoo gaartay jug hore ama mid hadda kusoo gaadhay oo cusub. Ogsoonow adigoo yar haddii dhabarku jug kaasoo gaarto, mar kale ayuu kugu soo kici karaa jugtaasi markii aad da'daadu ay weynaato ama aad yara kortid, oo waqtiga dambe baa laga yaabaa inay kugu soo kacdo jug waagii yaraa kaasoo gaaray dhabarka. Qodobka labaad oo sababi kara dhabar xanuunka waxaa ka mid ah foosha dheer. Foosh oo dheeraata waa qayb ka mid ah ama waxyaabaha laga dhaxlo dhabar xanuunka. Hooyooyinka qaarkood waxay ku rafaadaan foosha waxayna u horseedaa in la noolaadaan dhabar xanuun. Qodobka saddexaad ee keeni kara dhabar xanuunka waxaa ka mid ah neerfayaasha dhabarka ku teedsan oo dhaawac soo gaaro. Hal mid ogsoonow, haddii neerfayaasha dhabarka ku teedsan mid ka mid ah dhaawac soo gaaro, wuxuu noqonayaa xanuun si joogto ah oo la noolaatid. Qodobka afraad ee keeni kara dhabar xanuunka, caabuq ku dhaca laf dhabarta ama lafaha dhabarka oo isku dhaca, waxayna sahlayaan inuu dhabarku jirsado, inuu si sahlan uu dhabarka jirado ama uu qof kala noolaado xanuun joogto ah. Dhabarka waxaa ku teedsan murqo kuwaasoo isku haya jirka. Haddii uu dhabarka galo muruq, waa ay adag tahay in laga saaro. Lafta in ay tahay inuu yahay muruqa, dhakhaatiirta inta badan way ku wareeraan inuu muruq yahay iyo inuu lafta yahay. Markaas oo kale waxaa lagu kala saaraa raajada MRI-ga ama CT scan-ka kombiyuutarada la saaro qofka jirkiisa oo dhan. Fadhiga badan wuxuu dhaawac gaarsiiyaa dhabarka qaybta dambe. Inta badan darawaliinta waxaa dhaawac kasoo gaara qaybta dambe ee dhabarka. Haddaba intaadan dhakhtar u tagin, waxaa jira tillaabooyin yaryar oo aad gurigaaga ku samayn kartid oo laga yaabo dhabar xanuunka badan inuu kaa bo'o ama aad ka fiicnaatid adigoon soo booqan dhakhtar. Haddaba samee tillaabooyinkan gurigaaga ku samee, waxaa dhici karta in isbeddel weyn aad aragtid. Tan koowaad, soco maalintii ugu yaraan 30 daqiiqo. Tan labaad, jimicsi joogto ah samee oo dhanka dhabarka ah back training. Tan saddexaad, dhabarka ku xiro suunka loogu talagalay in lagu xirto dhabarka. Tan afaraad, cab waxyaabaha kulul sida sanjabiisha, toonta, basbaaska iyo maraqa oo filfil leh ama maraqa laga sameeyay hilibka ee filfisha iyo waxyaabaha la isku dardaray bahaaraadka ah. Haddii inta aad isbeddel ka dareemi weydo, fadlan booqo dhakhtarka lafaha si aad u ogaato cilada xagga ay ka jirto una qaadato dawooyinka kugu habboon. Waan filayaa inaad ka faa'iideen muuqaalkan. Fadlan haddii aad wax su'aalo aad ka qabtid muuqaalkan, dhanka commentiga noogu soo qor. Waa inoo muuqaalka xigi doona. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.